dowladda Norway ayaa waxa ay deganaanshiye kala laabatay qoys Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay in baaritaano looga sameeyay baraha ay bulshada ku kulmaan gaar ahaan aaladda Facebook oo inta badan ay dadka Soomaaliyeed ku diiwaan galiyaan magacaan ahayn kooda rasmiga qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaaradda Yurub gaar ahaan waddanka Norway ayaa dhankoodana arrinkaasi walaac xoog leh ka muujiyay maalmihii ugu dambeeyay ayaa la sheegayaa in wadamada ku yaala qaaradda Yurub ay bilaabeen in baaritaano ay ku sameeyaan Facebookyada dadka Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay in cidii lagu waayo magacooda rasmiga ahayn in talaabo laga qaadi doono faafahinta warkaasi waa ka wariyahayaga Maxamed Sharaf Xuseen oo loo faahfaahiya dowladda Norway ayaa maanta waxay kala noqotay deganaanshihi reer Soomaaliya ah kuwaas oo deganaa 6 sanadood hooyo 2 caruur haysatay iyo aabahood ayagoo reerkaasi buuxiyay shuruudihii looga baahnaa haday tacliinta wadanka ahaan lahayd ama shaqo ay labaduba haystaan ayaa waxaa loogu nisbeeyay qorshaha lagala noqonayo deganaanshuhu inay tahay in la soo baaray Facebookooduna sheegayo waxa ay isku dhiibeen inaanay ahayn taasoo markaa hooyadii iyo aabihiiba ay arrinka aad ula yaabeen kana xanaaqeen diidmacadna ay ka sheegeen waxa kaloo xidhiir lala sameeyay saxaafadda Norway la sameysay xafiiska qaabilsan qaxoontiga kuwaas oo sheegay in marka dhibaatooyinka jira waxay sheegeen inay mar kasto ay doonayaan qof inay baaraan inay ka soo helaan social media taasana xaqiijinaysa qof walba meesha uu ka yimi iyo waxa uu yahay dadkii magaalada deganaa ayaa aad uga xanaaqay kuwaas oo banaanbax ugu soo baxay ay ku taageerayaan reerka Soomaaliyeed waxa kaloo taageero dheeraad u bixiyay iskuulkii inantu dhiganaysay macallimadii ugu sareysay ayaa iyaduna taageero u fidisay arrinkana ku sheegtay wax aad iyo aad loola yaabo aan afka la soo marin kareyn social media wuxuu noqday meesha kaliya ee maanta wadamada Yurubtu ay dadka ka baadhayaan waa Maxamed Sharaf TV caalamiga Somali Cable Copenhagen